shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk Soomaaliya oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa looga hadlayay dardargelinta dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab, sidoo kalena lagu bogaadiyay guulaha la sheegay in ay ka gaareen dagaalkaasi ciidamada amniga Soomaaliya. Go'aano culculus ayay soo saareen golaha wasiirada oo ku wajahan muwaadiniinta Soomaaliyeed, kuwaasi inta badanna ka ratimi doonaan tallaabooyin sharci iyo ciqaabo kala duwan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay shirkii khamiislaha ahaa ee ay golaha wasiiradu ku yeesheen maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho. Go'aanada golaha ay soo saareen ayaa waxaa ka mid noqonaya: 1. Golaha wasiirada waxa ay bogaadiyeen marka hore ciidamada qalabka sida iyo geesiyaasha ciidamada madaniga ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. 2. Sharciyadii iyo xeerarkii horey u maray golaha wasiirada sida ku xusan, waxaa muwaadiniinta mar kale la xasuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toos ama si dadban, iyada oo la isticmaalayo warbaahinta kala duwan oo baraha bulshada ay ka mid yihiin. Qofkii lagu helayo lala tiigsan doono tallaabooyin sharciga waafaqsan oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taagi doono, ciqaab adagna oo sharciga waafaqsan la marin doono ayaa la yiri. Qodobada waxaa ka mid noqonaya lana mid ah taasi muwaadinkii u oggolaada gurigiisa, rugtiisa ganacsiga ama gaadiidkiisa in lagu fuliyo faldambiyeed amniga wax u dhimaya, ayna sidoo kale uu muteysan doono sharciyo adag ayaa lagu yiri, ayna mudan tahay inuu ka digtoonaado mar kalena la xasuusiyay. Qodobada kale ayaa waxaa ka mid noqonaya in dowladda Soomaaliya ay horeyba uga digtay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka ay ka socdaan howlgallada lagula dagaallamayo Al-Shabaab, gaar ahaan in ay ka digtoonaadaan in ay saameyn ku yeeshaan duqeymaha ay dowladdu ku weerarayso Al-Shabaab. Ugu dambeyntii, amniga garoonka Aadan Cadde waxaa la go'aamiyey in wax hub ah iyo gaadiid aan lala geli karin xeyndaabka garoonka, gaadiidkaas oo ah kuwa dagaalka, iyadoona garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho amnigiisa aad loo adkeeyey, islamarkaana qaabka loo fulinayo ajandooyinkaasi ee la xiriira amniga garoonka Aadan Cadde ay soo saari doonaan laamaha amniga ayaa lagu yiri.